wariyaha raadiyo xiriir oo soo warama Ogaadeenaya ayaa socdaal shaqo oo dheer ku kala bixiyay gobolada wadanka Ogaadeenaya qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee xoreynta Ogaadeenaya kana soo diyaariyay barnaamij uu ugu magac daray rajada shacabka Soomaalida Ogaadeenaya wariyaheena rasaas cilmi tawiil oo ay socdaalkaasi ku weheliyeen naftooda horayaal sugayay amnigiisa ayaa barnaamij dheer ka soo diyaariyay cududda muuqaalka iyo qaab nololeedka qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida rajada iyo moraalka shacabka Ogaadeenaya iyo waliba isdhaxgalka jacaylku ku dheehan yahay ee ka dhaxeeya naftooda horayaasha iyo shacbigooda gudaha ee Ogaadeenaya waana kan barnaamijkii rajo iyo wariye rasaas cilmi tawiil rajada shacbiga Ogaadeenaya waa faalo aan si kooban uga hadli doono rajada shacbiga Soomaalida Ogaadeenaya iyo xaqiiqada dhabta ah ee rabitaanka dadweynaha Ogaadeenaya. dhageystow noolo kaste oo Ilaahay abuuray inta uu dunida dul joogo wuxuu la nool yahay rajo taasoo micnaha ugu dhow ee aan soo qaadan karaay noqon karo waxa uu sugayo ee uu isku halaynayo mustaqbalka dambe. bani aadanka oo ah kan kadaata ugu sharafta badan noolaha dunida dul sabaynaya Ilaahayna subxaanahu wa ta'ala uu quraankiisa kariimka ah ku yiri walaqad karramna bani aadama ayaa wuxuu farsamo ahaan ku nool yahay qorshe uu dejistay marka laga milicsado dhinaca agaasinka noloshooda joogtada ah iyo kuwa dambe. shacbiga Soomaalida Ogaadeenaya waa dad uu haysto gumaysi madow oo kala hadhay bulshaweynta caalamka. waa dad aan ogolaanin in ay si dhab ah isugu dhiibaan gumaysigaas. weliba waa dad yaraysta oo iskala weyn kan kalaata gumaysta. waa dad dadaal badan, xurriyad jecel oo gumaysi neceb. gumaysi qarniyo tirsaday kadibna weli wuu shidan yahay dabkii halganka gobonimo doon. xilligan xaadirka ah waxaa si diiran Ogaadeenaya uga socda halgan ay horseed ka tahay jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya hareerahana hayaan shacbiga Ogaadeenaya. rajada shacabka Ogaadeenayana waa inuu halgankaasi midho dhalo. rabitaankooduna waa xurriyad iyo ayakatashi. dhawaan wuxuu reeriyo xurriyo socdaal xilli dheer qaatay ku kala bixiyey qaar ka mida gobolada Ogaadeenaya. taasina waa midda keentay in aan idin soo baahino rajada shacbiga Ogaadeenaya. naftoodayaasha ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeenaya waxay taako ugu jiraan dhulka Ogaadeenaya waxayna dhiig iyo dhaqanba wadaagaan shacbiga Soomaalida Ogaadeenaya. shaqada ay hayaanina waa midii shacbigu u dhiibtay si ay uga midho dhaliyaan rajada dadweynaha Ogaadeenaya. reeriyo xurriyo wuxuu kulamo kala duwan la qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada xoreynta Ogaadeenaya gaar ahaan qaybaha halgan, duufaan, gorgor iyo qaybta hanqad. intii aan socdaalkaas ku jiray waxaan qayb walba la qaadanay xilli ku filan si aan halkaas uga helo xog rasmi ah dhinaca shacab iyo dhinac ciidanba. ma jiro wax kala duwanaansho ah xag shacab iyo xag ciidan toona. shaqada ay hayaanina waa isku mid, noloshooduna waa isku mid, rajadooduna waa midba midkan kale. markii ugu horreysay waxaan qaybta duufaan kulan kula qaadanay meel aan saas uga fogeyn magaalada Dhagaxbuur ee xarunta u ah gobolka Tiradeed. waxay ahayd xilli roobeed guban madaxiisii ahayd. dadka iyo xooluhuna ka soo doogsadeen jilaal abaar ahaa oo waxyeello u geystay dad iyo dunyaba. waxay ahayd xilli ay dadweynuhu aad u faraxsanaayeen. hadal hayskooduna ahaa oo keliyata sideen usii xoojinaa taageerada halganka xaqa ah. waxay ahayd xilli uu dhabarka ka jaban yahay cadowga ummaddu cimilada wanaagsan awgeed moraalkiisuna dhulka yaallo. waxay ahayd xilli ay naftoodayaasha qaybta duufaan weeraro joogta ah ku hayaan ciidanka cadowga oo ku xaraysan xeryo ku yaala meelaha magaalada ah. suuragal way u noqon weyday inuu nabad ku seexdo. kadibna sidaas
ayay shacbigu isugu hambalyeynayaan si bareer ah iyo si qarsoonba. waxaad isweydiin tolow shacabkii iyo naftoodurayaashii duufaan aragtay maxay kaga duwan tahay qaybta gorgor oo aan saasba ooga sii fogeyn qaybta duufaan? haba sugin wax kala duwanaansho ah, laakiin itusoo taabsi. markay xigtay howlgalkii gorgor, duufaan iyo gorgor waxay ka wada mid yihiin qaybaha ciidamada xoreynta Ogaadeniya. naftoodurayaasha qaybta gorgor waxay sidoo kale heegan ugu jireen howlgallo ay kala hortegayeen ciidamada cadowga meel ka mid ah dhulka oo lagu ogyahay laguna yaqaano. intii aan joognayna waxay mar si dhib yar gacanta ugu dhigeen magaalada Hore Khaliifo oo aan saas uga fogeyn degmada Qabri Bayax ee gobolka Jigjiga. hub iyo saanad aad u tiro badan ayayna halkaas kagala wareegeen ciidamo aad u daalanaa oo uu wayaanuhu carbistay. sidoo kale dadweynuhu waxay isugu hambalyeynayeen guushaas taariikhiga ah iyo guulo kalaba. mana jirto wax ay kaga duwan yihiin shacabkii aan soo arkay howlgalkii duufaan dhexdiisii. maalmo kadib oo aan dhex jibaaxnay qaybta Hanqadh, waxaan ka qayb qaadanay kulan guud oo ay meel magaalada Dhuxun u dhow isugu yimaadeen naftoodurayaasha ciidanka xoreynta Ogaadeniya ee qaybta Hanqadh. magaalada Dhuxumeed waxay dhinaca ku haysaa buurta weyn ee taariikhiga ah ee Qari Joqood. magaalada iyo buurtubana waa dhul taariikhi ah kana mid ah gobolka Nugbeed. waxaa degan tiro ka mid ah askarta wayaanaha. cabsida iyo culayska ka haysta dhinaca naftoodurayaasha ciidanka qaybta Hanqadh awgeed, dhagahaygu waxay maqlayeen rasaas iyo hub ay askartaasu dhinaca hawada u dirayeen. taasina waaba haddii la odhan karo waxay dhagahaygu maqlayeen wax ka duwan wixii hore. indhahayguse weli ma hayaan muuqaalkii hore mid ka duwan. naftoodurayaasha qaybta Hanqadh waxay kulankaas isugu diyaarinayeen dardargelinta howlahooda halganka. waxayna muddo 3 maalmood oo uu kulankaas socday kadib u kala laabteen goobahay isugu yimaadeen. muuqaal ahaan, shaqo ahaan, wax ay ku kala duwan yihiin ma jiro kuwii hore. shacabka iyo dareenkiisuna sidoo kale. isku soo duuduubo, ciidan isku mid ah, bulsho isku mid ah, iyo weliba shaqo isku mid ah. laakiin dhulka Ogaadeniya waa uu kala duwan yahay. waxaan uga jeedaa waa dhul kala sarsareeya, buuro iyo banaanba leh, dhul sare iyo dhul hooseeya. cimilada dhulkuna kala bedelan, cimilo kulul, mid qabow iyo mid dhexdhexaada. dhulka iyo shacbiga Ogaadeniya waa la gumaystaa. rajaduna waa xornimo iyo horumar. shaqaduna waa halgan iyo hawl joogto ah. rasaas cilmi, radio xuriyo, kala marna Ogaadeniya. kaasina wuxuu ahaa dhegaystayaal wariyaha raadiyo xuriyo Ogaadeniya oo barnaamijkaasi rajo soo diyaariyay mar uu socdaal shaqo ku kala bixinayay qaybaha kala duwan ee ciidamada iyo shacabka ku dhaqan agagaasi. ka dhagaysa raadiyo xuriyo wararka iyo warbixinadii u dambeeyay, faallooyin iyo barnaamijyo xiiso leh. raadiyo xuriyo codka shacabka Ogaadeniya. gunti iyo gunaanadkii ayaa dhegaystayaal la soo gaaray. soo saaraha idaacadda galabta wuxuu ahaa saaxiibkay Maxamuud Sheekh Cali. Fawziya iyo Cabdinuurna si wada jir ayay idinku daadihinayeen. tan iyo kulanti dambe waa dhammaantayo oo idin leh sidaa iyo kulanti dambe. waxay tahay marna aadan garano waxay tahay